dhab ahaantii hantida iyo lacagtu marnaba kuma yimaadaan habeen iyo dharaar oo keliya, balse waxaa macquul ah inuu qofku u dhowaado inuu noqdo mid hanti iyo lacag haysta haddii uu markaas wax ka beddelo aragtida uu ka haysto lacagta. run ahaantii maanta waxaan ku noolnahay waqti qof walba oo inaga mid ah uu fursad weyn u heli karo inuu sameeyo hanti iyo maal. mid ka mid ah hantiilayaasha adduunka ku nool wuxuu yidhi, haddii aad soo kulmiso lacagta adduunyada taallo oo idil, kadibna aad dadku ugu qaybiso si siman oo cadaalad ah, muddo yar kadib lacagtaas waxay ku noqon doontaa jeebkii ay ka soo baxday markii hore ama laga soo qaaday. haddaba waxaad ogaataa ama si fiican u dhuuxdaa in middaas micnaheedu ay tahay in kuwii markii horeba saboolka ahaa ay saboolnimadoodii u noqon doonaan, halka kuwii taajiriinta ahaana ay u noqon doonaan taajirnimadooda. sababtoo ah qolo walba caqliga ay kula macaamisho lacagta ayaa ah mid aad iyo aad u kala duwan. sidaas daraaddeed haddaadan beddelin aragtida aad ka haysato dhanka lacagta, waxaad ogaataa inaad mar walbana ahaanayso inaad tahay mid faqiir ah. sidaas awgeed waxaan rabaa halkan maanta inaan kugula wadaago fikrado badan aan horay ula soo wadaagay dad fara badan oo u suuro gashay inay labalaabaan ama ay saddex jibaaraan faa'iidadooda. noloshan aan ku noolnahay runtii waa mid had iyo goor u baahan inaad ku samayso koritaan joogto ah. waa inaad maskaxdaada gelisaa daqiiqad kasta sidii aad ku horumarin lahayd noloshaada, sababtoo ah habdhaqan kasta oo aad noloshaada la timaaddo waxay go'aamin doontaa heerkaaga guusha ama guuldarradaada. tusaale ka soo qaad marmarka qaar markuu dhaqaaluhu uu hoos u dhaco, waxaa dhacda in dadka qaar ama shirkadaha qaar ay si fudud isku dhiibaan iyagoona ka murugooda markaas khasaaraha soo gaaray, waxayna si degdega uga baxaan suuqa iyagoo markaas qaato go'aamo jilicsan aysan ka fiirsanin, halka runtii qaarka kale ee soo haray ay si fiican ula dhaqmaan xaaladaha adag ee soo wajahay iyagoona la imaado waxqabad iyo dhaqdhaqaaq dheeri ah ay ku soo afjaraan dhibaato kasta oo soo wajahday. tanna runtii waxay la micno tahay in guusha iyo guuldarradu ay ka dhashaan hadba go'aanka ay naftaadu qaadato. haddaba maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo bilowgii safarkaygii nolosha. shaqooyinkii iigu horreeyey ee aan markaas qabtay waxay ahaayeen shaqooyinka iska caadiga ah sida shaqooyinka gacanta, waxaana ahaa waqtiyadeeda ka mid a mid alaabaha u dhaqi jiray hoteel yar oo ku yaalay xaafaddeeda. muddo kadibna waxaan ka soo shaqeeyey beeraha, dhismooyinka iyo warshadaha. waxaana xasuustaa weliba waqtiyadeeda ka mid ah inaan ahaa mid dhex seexan jiray beer weyn oo aan ka shaqayn jiray dhexdeeda. run ahaantii shaqooyinkaas waxay ahaayeen kuwa soo maray noloshayda oo aan ka helay khibrad iyo aqoon gaar ah. Albert Einstein wuxuu yidhi, qeexidda waalida ama doqonnimada dhabta ah waa ku celcelinta shay aad mar walba ku celceliso adigoo markaas raadinaya natiijo cusub. inaad hal shay oo keliya aad ku dhegnaato noloshaada adigoo raadinaya natiijo cusub runtii waa wax aanan macquul ahayn oo laga fiican yahay. xaqiiqatan aniguna kuma qancin waqtigaas inay noloshayda u ekaato mid leh hal midab oo keliya ah. fikir iyo isla hadal badan aan la galay naftayda kadib waxaan qaatay inaan anigu samaysto nolosha aan u baahanahay inaan ku noolaado. wixii iigu horreeyey ee markaas isoo jiita ayaa waxay ahayd inaan barto hababka wax loo kala iibiyo ama dalaalnimada. 20% ka mid a dadka suuqa kala iibinta ku biira ayaa waxay moodaan in wax kala wareejinta heshiisyada iibka ay tahay wax fudud oo uu qof walba samayn karo, iyagoona markaasina ay ka dhaadhacsan tahay inay ka samayn karaan dhaqaalo badan oo ka soo gala. xaqiiqatan waa mid dhab ah in laga samayn karo horumar iyo nolol wanaagsan, iyo weliba sidoo kale waxaa macquul ah inaad riyooyinkaaga ka xaqiijiso dhankaas iyo xirfaddan wax kala iibinta. balse si aad u samayso una xaqiijiso riyooyinkaaga, waxaa qasab kugu ah inaad noqoto mid khabiir ku ah xirfadda wax kala iibinta iyo heshiisyada. intaas kadib waxaan ku biiray caalamka wax kala iibinta iyo dalaalnimada anigoona ka shaqo bilaabay markaas shirkad ka shaqayn jirtay arrimaha heshiisyada iyo wax kala iibinta, anigoona albaab kasta oo iga hor imaaday u garaacay si aan wax uga fahmo habka wax kala iibinta iyo heshiisyada. runtii waqtigaas waxaan ahaa mid aanan haba yaraatay khibrad iyo tababar aanan haysanin. waxa keliya ee markaas maskaxdeeda ku jirta ayaa waxay ahayd inaan u shaqeeyo si adag oo juhdi ah. ugu dambayntiina waxaan helay muddo 30 maalmood ah kadib inaan sameeyo heshiiskii ugu horreeyey ee dhanka wax kala iibinta. run ahaantii waqtigaas noloshaydu waxay ahayd mid aad u xun xaaladdii ay ku sugneed. waxaan ahaa waqtigaas mid seexda sagxadda dhulka, guri uu lahaa markaas ninaannu saaxiibbo ahayn. waxa intaas ka sii daran ayaa waxay tahay inaan haystay oo keliya hal joog oo dhar ah oo aan habeenkiina ku dhaqan jiray musqusha.
iyo weliba sidoo kale waxaan lahaa hal tahay oo keliya oo isaguna intaan maalinkii xirto ayaan habeenkiina iska siibi jiray. Muddo 6 bilood ah oo aan ku dhex jiray shaqadaas ayaan ugu dambayntii waxaan helay faa'iido yar oo ku filnaatay markaas noloshayda. Intaas kadib ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay hal nin oo ka mid ahaa shaqaalihii shirkaddii aan ka shaqaynayay oo markaas sameeya 10 jibaar macaash ka badan inta ay sameeyaan shaqaalaha kale, isagoona isla markaasna ahaa mid aanan si adag oo dhib badan u shaqaynin. Wuxuuna ahaa mid maalin walba shaqada soo gala saacaddu markay tahay 9:15 subaxnimo. Waxa ugu horreeya markuu shaqada soo galo uu qaban jiray ayaa waxay ahayd inuu isla markiiba u tegi jiray macaamiisha cusub ee imaada shirkadda, ama waxayba noqon jirtay inay macaamiishu isaguba ugu yimaadaan xafiiskiisa. Wuxuuna ahaa mid shaqada si toos ah u bilaabi jiray bacdal duhur, isagoona shaqada dhammayn jiray saacaddu markay tahay 5 galabnimo. Kadibna wuxuu iska aadi jiray maqaayadaha kuwa VIP-da ah, isagoona sidoo kale ku raaxaysan jiray fasaxiisa. Wuxuuna sidoo kale lahaa guri qurux badan oo qaali ah, noloshiisana runtii wax dhibaato ah oo haystay haba yaraatee ma jirin. Balse arrinta yaabka iyo qosolka leh ayaa waxay tahay inuu isaguna ahaa mid iibinayay isla badeecaddii aan aniguna iibinayay, iyo weliba isku qiimihii, isku dadkii iyo isku shuruuddii. Haddana sidaa ay tahay wuxuu ahaa mid aad noogu horreeya dhanka heshiisyada iyo macaamiisha, sababtoo ah wuxuu ku guulaysan jiray in ka badan intay qabtaan shaqaalaha kale ee shirkadda. 6 bilood oo aan ku jiray shaqadaas kadib, waxaan isweydiiyey waxa dhankayga ka qaldan oo aanan u qaban karin heshiisyo badan. Fikir dheer kadib waxaan go'aansaday inaan si toos ah ugu tago oo aan weydiiyo sababta uu mar kasta ugu guulaysto heshiisyada, balse aan anna ugu guulaysanin. Balse wuxuu si degan iigu yidhi, waxaad i tustaa dukumiintiyada badeecadahaaga iibka, laga yaabee inaan wax badan kaa caawiyo. Runtii waxaan meesha ku haystay ayaa waxay noqdeen oo keliya wax aan dhihi karo waxay ahaayeen wax aanan jirin iyo weliba wax xaqiiqada ka fog. Runtii waxaan ahaa mid markuu helo macmiil cusub ku hadli jiray waxyaabo aanan loo baahnayn iyo hadallo aanan fadhin, ilaa aan ka arko macmiilkii oo intuu saacaddiisa fiiriyo igu dhaho waad ku mahadsan tahay imaanshahaaga, waan ka fikiri doonaa arrinkaas ee hadhow isoo wac. Haddana haddii aan sidoo kale qaabilo macmiil kale oo cusub, jawaabtuna waxay ahayd isla sidii iyo qaabkii hore. Intaas kadib wuxuu ii sheegay ninkii inaysan ahayn qaabkii loo baahnaa in loo maro howlaha ku saabsan wax kala iibinta iyo heshiisyada. Wuxuuna igu yidhi haddii aad rabto inaad ku guulaysato heshiis walba iyo iibin kasta, waa inaad raacdaa 7 qodob oo aasaasi u ah inaad ku guulaysato heshiiska. Qodobka koowaad waa inaad samaysaa qiimeyn iyo saadaalin ku saabsan si aad u doorato dadka ku habboon inaad u soo bandhigto iibkaaga. Qodobka labaad waa inaad dhistaa xiriir is-aaminaad ah oo markaas u dhexeeya adiga iyo dadka aad heshiiska wada gasheen. Qodobka saddexaad waa inaad weydiisaa su'aalo badan macaamilkaaga si aad u hesho markaas baahidiisa dhabta ah. Qodobka afaraad waa inaad tustaa dalabka iyo alaabta aad hayso. Qodobka shanaad waa inaad ka jawaabtaa waxyaabaha diidmada ah adigoonan hadal qurxis iyo waxba aadan galin. Qodobka lixaad waa inaad ka xaqiijisaa heshiiska inaad wax ka iibiso. Qodobka toddobaad waa inaad iska hubisaa mar labaad heshiiska aad wada gasheen adiga iyo macmiilkaaga. Haddaba maalintaas kadib markii aan dabaqay 7daas qodob aan soo sheegnay, runtii waxaa gebi ahaanba isbeddelay qaabkii aan ku socday markii hore, anigoona kasbaday wakhtigaas macaamiil fara badan. Intaas kadib waxaan bilaabay inaan akhriyo buug kasta oo ku saabsan arrimaha iibka iyo heshiisyada. Waxaana bilaabay inaan dhegaysto barnaamijyada buugaagta codka ah. Sidoo kalena waxaan bilaabay inaan tago siminaarada iyo muxaadarooyinka ku saabsan iibka si aan xogtaas ugu hormariyo arrimahayga wax iibinta. Runtii waxaan sameeyey 2 shay oo muhiim u ahaa xirfadeyda oo saameyn weyn ku lahaa noloshayda. Waxa ugu horreeya waa marka aan maqlo wax cusub, inaan isla markiiba isku dayo inaan tijaabiyo waxaas. Waxaad arkaysaa dadka inta badan intay maqlaan wax cusub oo muhiim ah, inaysan haddana isku dayin inay tijaabiyaan waxaas cusub. Midda labaad aan bartay ayaa waxay tahay inaysan jirin wax la yiraahdo guuldaro. Guuldarrada dhabta waxaad ogaataa inay timaado marka aad joojiso isku daygaaga. Haddaba maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago kelmad yar oo basiid ah oo horumarin doonta xirfadihiina iyo waayihiina. Waana kelmad yar oo labalaabi doonta faa'iidooyinkiina ganacsi haddii aad qabsataan. waana kelmadda la yiraahdo sidee waxaana dhab ah qofkii ku dabaqo kelmadda noloshiisa
inuu gaari doono mustaqbalka guulo waaweyn. mowduucina maantana intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum.